waxa uu ka qali rogtay jaamacadda isagoo soo qaatay tababar military. waxaa loo diray xabsi ku yaala Ciraaq. xabsi ay ku jiraan argagixisada adduunka ugu khatarsan. waxaanay saaxiibeen maxbuus muslim ciraaqi ah. qisada filimka Boys of Abu Ghraib. saaxiibtinimo ka dhex dhalatay askari Mareykan ah iyo maxbuus muslim ah oo ka soo jeeda Ciraaq. filimku wuxuu ku bilaabmayaa nin lagu magacaabo Jack kaasoo jaamacadda tababar military ku soo qaatay. waxaa Jack qoyskiisu u qabteen xalfadii dhalashadiisa ka hor intaan uu safrin Ciraaq si uu waajibkiisa u soo gudto. waxaana kala soo qayb gashay jacaylkiisa, waxaana ka dalbatay inuu nabadqab ugu soo noqdo ayna sii sugi doonto. subaxdii xigtay waxay Jack iyo saaxiibadii ciidanka ahaa u safreen goobtii ay ka shaqayn lahaayeen oo la dhaho Abu Ghraib oo ku taalla Ciraaq. markii ay meeshii soo gaadheen waxaa qaabilay taliyihii, waxaanu baray waajibaadka ay tahay inay raacaan. waa inay ka taxadiraan la tacaamulkooda maxaa yeelay waa argagixisada ugu khatarsan caalamka. kadib waxa uu askariga u kaxeeyay xabsiga, waxaanu u sheegay in aanu xabsigu lahayn wax koronto, sidaa awgeed waa inay haystaan waxyaabaha daruuriga. markay soo galeen goobtii ay seexanayeen way la yaabeen markay arkeen dhiig meel kasta ku daadsan iyo urta xun. kadib waxauu saaxiibkoodii Nigerianka ahaa bilaabay inuu jawiga ku buufiyo udug. kadib Jack ayaa ka dalbaday inay askarnimadooda ku ekaadaan maxaa yeelay meesha waxay ku joogaan ciidanimo laakiin maaha safar dalxiisa. Jack wuxuu sameeyey jadwal uu ku sawirtay gidaarka si uu la socdo maalmaha uu joogay xabsiga. waxau ku dhigay Jack calaamadii ugu horreysay ee jadwalka. kadib sarkaalkii mas-uulka ka ahaa ayaa waxau ka codsaday inay is-ilaaliyaan. waxau u sheegay inay jiraan tiro mutadawiciin gaar ah kuwaasoo lasoo diri doono dhowaan, waxaanay naga caawin doonaan ilaalada maxaabiiska. waxaanu weydiiyey haddii ay jirto mid idin ka mid a oo si mutadawacnimoa noo caawinaya. maalintii xigtay Jack waxa uu tegay sarkaalkii, waxaanu u sheegay inuu si mutadawacnimo ah uu ula ilaalinayo maxaabiista. sarkaalkiina waxa uu u sheegay adayga shaqada. mutadawac horena ay sheekadiisii noqotay in lugta xabad lagaga dhuftay markii uu maxbuus isku dayay inuu baxsado. Jack waxa uu ahaa mid ku faraxsan oo sheekada taxadirku u daarnayn, isagoon tababar ama wax fikrada ka haysan waxa ku dhici doona. waxaa Jack loo gudbiyey goobtii ay joogeen maxaabiista, halkaasoo ay ku jiraan qolo loogu talagalay argagixisada waaweynka. waa uu kaxeeyey sarkaalkii si uu u kala baro meesha, waxaanu uga warramay in aanu la sheekaysan maxaabiista iyo in aan loo naxariisan maxaa yeelay waxay shaqadoodu tahay inay ciqaabaan maxaabiista oo ay ka mid tahay in cuntada iyo biyaha loo diido iyo in la ciqaabo. waxa uu sarkaalkii u qaaday qolkii koowaad si loo tuso nooca ciqaabta ee la marsiiyo maxaabiista. qolkan waxaa ku jira maxbuus lagu ciqaabayo qaab loo yaqaano howlgabinta muruqyada, waana hab lagu marsiinayo xanuun aan la marayn karin. qolka xiga waxaa ku jira maxbuus taagan bartanka qolka kaasoo kor u qaaday gacmihiisa haystana xaasaw koronto ah, waxaana la amray in aanu gacmaha hoos u dejin haddii kale korontada ayaa lagu daarayaa. sidaa aawadeed sidaas ayuu ahaanaya waqtiga oo dhan. markii Jack dareenkiisa uu sheegay wuxuu sarkaalkii ku warramay in ay yihiin argagixiso khatar ah, waxaanay sameynayeen hub galaaftay malaayiin dad ah, ciqaabtooduna ay tahay abaalkooda. intaa kadib waxau bilaabayaa inuu kala barto maxaabiista, waxaanu u sheegay in aan lagu yeedhin magacyadooda saxda. taas beddelkeeda
ay leeyihiin lambaro u gaara. Waxa uu amray inuu ku adadkaado, haddii kale way daciifsanayaan. Maalintii xigtay waxaa la keenay maxaabiis cusub. Markii ay soo gaadheen qolalkoodii khaaska ahaa, waxauu sarkaalkii ka saaray kiishkii ku jiray madaxooda, waxaanu Jack ka dalbaday inuu ka saaro kiishashka hadhay. Markii uu kiishka mid ka mid a ka saaray, wejiga ayuu hidh kaga dhuftay. kadib sarkaalkii ayaa ciqaab ku bilaabay, laakiin wuxuu ku dhawaaqay Allahu Akbar. waxaanay maxaabiistii bilaabeen inay takbiirta ka daba dhahaan. waxaanu sarkaalkii u wada ciqaabay isla sidii, laakiin waxaa jira maxbuus iyaga ka mid ah kaas oo aan marnaba hadlayn. waxaanu sarkaalku u bixiyey aamusane. maalintii xigtay maruu Jack indhaydhaynayay, waxa uu midkood ka dalbaday tiishka waraaqda. waa uu siiyey. markii uu eegay qolkii xigay, waxuu arkay oday duqa oo dhintay oo dhulka yaala. waxa uu ka soo saaray qolkii, waxaanu bilaabay inuu gargaar degdega siiyo, laakiin sarkaalkii ayaa ka dalbaday inuu ka joojiyo maxaa yeelay waa argagixiso. laakiin Jack waa uu diiday. waxaanu sii waday caawintiisii, laakiin xaqiiqatan duqii mar hore ayaabay ka baxday. maalintii xigtay markii ay cunayeen cuntada, waxay saaxiibadii bilaabeen inay ku jeesteesaan maxaa yeelay waxau isku dayay inuu badbaadiyo argagixiso, kamanu baqin inuu dhib soo gaarsiiyo. maalmuhu way iskureen. Jackna waxa uu kula gudbayay jimicsiga maxaabiista iyo saaxiibadii. maalin uu dhex sooday maxaabiista, kolkaas oo mid ka midii u yeedhay. markii uu tegay, waxa uu u sheegay inuu arkay mid ka mid a maxaabiista oo samaysanaya shay u eg hub, laakiin markii uu baadhay Jack dhammaan qolalkii waxba kamaanu helin. markii uu waayey hubkii, waxa uu bilaabay inuu ciqaab marsiiyo midkii uu keenay warka. waanu ka tegay meeshii. gooruu dhex sooday maxaabiista, mid ka mid a ayaa kusoo tuuray khudaar wejigiisa. kii labaadna waxuu ka dalbaday inuu keeno tiishka waraaqda. markii uu keenay, waxauu isku dayay inuu ku dilo midi yar oo uu sitay. markii waqti badan ka soo wareegay, waxa uu Jack la saaxiibay mid ka mid a maxaabiista oo lagu magacaabo aamusane. qaasi maxamuud waa injineer wax ku soo bartay London, ilaa uu tusay sawirka jacaylkiisa. waxaanu u ballan qaaday inuu ugu dhiibi doono shukulaato macaan markuu tegayo. maalin ka hor waqtigii ay ku laaban lahaayeen guryahooda, waxay Jack iyo kooxdiisa ogaadeen in muddadii shaqadoodu ay ku soo gabagabowday 7 bilood. way la yaabeen go-aanka, laakiin waxay bilaabeen waajibkoodii maalinlaha ahaa. waxau la kulmay aamusane tacadiyo iyo falal arxan daran oo kala duwan, iyadoo qolkiisa lagu ciqaabayo heer uu gaadhay inuu isku dayo inuu isdilo, laakiin Jack ayaa badbaadiyey daqiiqadii u dambeeyey. waxau Jack ugu dambeyntii wajahay saaxiibadii ciidanka ahaa, isagoo difaacaya dembi la-aanta Maxamuud. laakiin waxau Jack ogaaday inuu Maxamuud qirtay inuu ka dambeeyey qarax qumbulada oo loola beegsaday 18 shicib ah. waxau Jack wajahay Maxamuud, waxau weydiiyey inuu dilay dad beriya. waxau Maxamuud ugu jawaabay in aanay iyagu ahayn bilaa dembi. waa uu ka xumaaday Jack, waxaanu qaaday dariiq cadaawad badan. waxaanu bilaabay inuu la dhaqmo si ka duwan sidii hore naxariista ahayd. kadib qirashadii Maxamuud, markii ay gaadhay waqtigii uu Jack ku noqon lahaa gurigii, waxau cayimay askari kale oo gelaya bartiisa. waxau qeexiyay askarigii, waxaanu baray sida loola dhaqmayo maxaabiista ad adayg aan wax naxariisa lahayn. waxau askariga cusbaala soo baxay kaamirad, waxaanu qaaday sawir. Jack ayaa ka dalbaday inuu kaamirada meesha kala fogaado. markii uu Jack ogaaday inuu Maxamuud seexday, waxuu ka soo saaray qolkii isagoo qayliyaya, waxaanu madaxa u geliyey baaldi biyo ah. markii ay Jack u dhammaatay muddadii, waxuu ku noqday qoyskiisii, waxaanu helay jacaylkiisii oo sii sugaysay. kadib markii aabihii weydiiyey haddii ay jirto cid uu dilay ama uu kula dhaqmay adadayg, waxau ugu jawaabay ma jirto. waxay Jack iyo jacaylkiisii u baxeen meel lagu hubiyo alaabta guriga. markii uu arkay kiish ay ku jirto shukulaato, waxau soo xasuustay saaxiibkiisii hore ee Maxamuud. waxau si kadisa Jack u arkay wararka oo si toosa u fadeexadeynaya xabsiga Abuqariid. waxay soo daayeen sawiro ciidanka oo ciqaabaya maxaabiista, waxaana soo muuqday
sawirka isagoo ciqaabaya maxamuud waa uu naxay markii uu ogaaday in ciidankii sida xun ula dhaqmay maxaabiista la xukumi doono. markii aragtay jacaylkiisii sawirada jack waxay la yaabtay habdhaqanka jack. sheekadina way dhamaatay qulqul tiim Axmed Sayid. We love you.